taariikhda noo gali الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وسلم وقريسو ضمان خير بشرة لك سوقي بشيء برنامج شهادة روح المضل الأسر الذين ولكن جودي بدن سني ولكن عبدي جي لما يدينا سابو الرجي ومكانك فرنا ومقعد فرنا السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية إن شاء الله تعالى الله يا مجا أورك كاسبين سمعني خمين سخمين نايميخن إن وحن أديات وقف رحسنا ما أنت إن البرنامج كان قروح البدن أنا سؤال بابلنا إن وحن ربع وحير إن إذا كان شاكي تاريخ ير أو سبب الله أساسيت إن سبين إن حقيقة أمضى الصوماليات مركان ودنك كسو تجيني وحد مودا إن حلاد يرباطه بربر عن وصع عرني وحين نمت ميلان جرنين إن كلتشر كذا جرنين النظام كان أقولين كذب وحين نقلنا قحوتي أيانو نقلنا وضن كان كسعرنا قحوتي أنا نقلنا مرة دقيقة قفك قحوتي نقلنا ولا معمولة يعني وحال قاركوت بدنا كقل دماء هذا بقى إسبين مركتا أركتي نايميقن وحيكون كجارتي إن أي أورر سميسو أورر كاس لوجو مقعدري إسبين أو سومالي بلان خمين سبين نايميقن تا أو هدف كذا وياهي سيدي لتوكيني لها سومالي ذا دجن مقالة نايميقن loo midayn lahaa loo shaqayn lahaa xataa la bari lahaa nidaamka waddanka ka jiro waalidka isdagaalsan ciyaalka iyo hooyooyinka barbalamada ka taagan ardayda aan waxbarashada haysanin in laga saacido ayay ururku u istaagay falilahi alxamdu aan ku guulaysanay ururku wuxuu shaqaynayaa ugu yaraan 10 sanadood wama zaad uu shaqaynayaa wax badan ayaa u hirgelay waalidiin badan oo carruurtooda kala tageen ay isku keeneen waalidiin badan oo wiil iyo hooyo iyo aabo kala tagay isku keeneen alxamdulillah waa hadafkii aanu lahaynay ahayd lianna hadaanan taa la sameeynin waxa imaan lahay burbur qoys ayaa imaan lahaa taana waa muhiimadda nasaare inayna Soomaali hadeenahay in hawsha ka qabano alxamdulillah rabbil caalamiin anagoo taa ka duuleynay ayaan maanta hadana waxaan u istaagnay maadaama barnaamijkeena uu yahay arrimaha bulshada Soomaaliyeed inaynu ka shaqeyno waxaa maqaal nagu naqday maqalnay walaalkeena Cabdi Nagaye oo juhdi badan sameeyay dadaal badan sameeyay ka dhiidhiyay muwadaniyada walaal jaceelka iyo halyeynimada iyo wuxuu u soo hooyay magaalada aanu deganahay wadankeenu deganahay magacii Soomaaliyeed aynu haysano marka horeyso waxaan idin leenahay dhamaantiin idin barno ana marnaba idin baraayo Cabdi Nagaye isku cusbni إن شاء الله تعالى فيسبوك قال إسبين قال وأرضينا كم يتهاي وهو هاي هذا أرك إسبين ليد كم يدا يجيه عبد نجية مركب مرلبا مرسد حق وحنقولنا جزاك الله وغير جدي أسماء ذلك أسماء وحنقول دار من هذا إن هاي كان إسبين إن هذاش أصيل لأولادي ضد بدنا يكسجويو هذا الله ودلنا وقت هذا أيون نوير هاي وحنرجعنا مركب إن شاء الله تعالى إن نحلنا أرضي نوع سيد عبدي وكلنا نحلنا لأن Want Nijmegen is een echte sportstad. Ik zit in de gemeenteraad en probeer het belang van sporten en bewegen voor iedereen, voor jong en oud, te stimuleren. Wat hebben we dan de beste stimulant die er dan is? Dat iemand uit Nijmegen ook op de Olympische Spelen de marathon wint. Ik weet ook goed dat we er waren op zondagochtend, keken we altijd wat er de nacht tevoren was gebeurd. De zaterdag was al een fantastische dag voor Nederland. En toen zagen we dat die de zilveren medaille had gewonnen. Iets wat we misschien niet hadden gedacht, maar wel hadden gedroomd, was gebeurd. En ook niet alleen hoe die hem won, maar ook de manier waarop. Ook de manier waarop ik zijn trainingsmaatje, Abdi Bashir, die goed zegt, de nummer 3, hielp over de streep en ook een medaille winnen. Is een voorbeeld van allemaal. Dus hoef ik weinig aan toe te voegen. Fijn dat ik hier mag zijn, winnen en dat Nijmegen ook een voorbeeld aan hem kan nemen. Dankjewel. Tokio met de marathon. Ik was in Wuhan, een Griekse stad. En hij startte en ik startte ook. Ik ging gewoon bij het meer van Wuhan uit een prachtig kasteel, een moskee, uit de Ottomaanse tijd, waar een museum is. Ik heb mijn rondje gelopen, kwam terug, hij was nog steeds bezig. En het is pas een week geleden dat Abdi in
Tokio op het allerhoogste podium stond. Geflankeerd Eliud Kipchoge en Bashir Abdi. Ook twee atleten die ik heel erg goed ken. Abdi, wat heb je mij, miljoenen mensen, ongelooflijk blij gemaakt met je fantastische prestatie. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, je hebt me ook verrast. Natuurlijk heb ik je carrière altijd gevolgd. Vond je een geweldig atleet. Waarom was Abdi zo geweldig? Omdat het een jongen was die van hardlopen hield. Gepassioneerde sportman. Hij hield van het hardlopen. En het valt niet altijd mee, want om wegen te maken van 180, 190 kilometer, jaar in, jaar uit, 10 jaar lang of nog langer. Iedereen ziet natuurlijk nu het resultaat. En het is geweldig dat het allemaal gelukt is. Ja, Abdi, ik heb je natuurlijk gevolgd. Ik heb je, als junior heb ik je Nederlands kampioen zien worden bij de A-junioren. Ik denk, hé, wat is dit allemaal? Ik zag je jaar voor jaar sterker worden. In de marathon, we moeten niet vergeten, Abdi kwalificeerde zich voor Rio de Janeiro. En daar werd hij 11e. En dat vond ik wel heel geweldig. 11e op de marathon. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? 3 jaar daarna was ik in Rotterdam getuige van je Nederlands record. Samen met Koen, dat weet ik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadalada badana waa la soo sheegay marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo akhyaartii dacwadan soo ajiibtay akhyaartii kulubkaan soo ogolaaday inay noo imaadaan waxaan kale u mahadcelinaynaa dhalinyarta isboortiga ah ee Netherland aada u mahadcelinaa waxaan kale u mahadcelinaa martida noo imaadeen journalistayaasha iyo organizationyaasha kale noo imaadeen ayaga u mahadcelinaa aada u mahadsantihiin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allereerst bedankt voor deze uitnodiging. Ik vind het een enorme eer om hier aanwezig te zijn, om een echte Olympische kampioen in Nijmegen welkom te mogen heten en uit te spreken namens de Nijmeegse gemeenschap. Mag ik dan denk ik wel zeggen dat we echt ontzettend trots zijn. Het is een enorm geweldige prestatie, zilver halen op zo'n afstand. Ik heb mijn zoon mee mogen nemen, die kan zich niet voorstellen. Afgelopen week zijn we voor het eerst naar de atletiekbaan gegaan, maar dat misschien op atletiek. En ik heb hem een rondje van 400 meter laten rennen, maar hij was lekker af. 42 kilometer, dat is dan een hele prestatie. En dat vind ik gelijk ook zo mooi, dat zo'n prestatie dan ook gelijk een inspiratiebron is, weet ik, voor heel veel jeugd. Ja, goedemiddag en dank voor deze uitnodiging en dank ook voor deze topprestatie. Niet alleen op sportief gebied, maar ik denk met name op sociaal gebied. Want de manier waarop jij dan ruim 2 uur lopen op het trainingsmaatje, jouw vriend, was je zo opving, ik zag het gewoon op de tv. Want daar zie dat jij toen niet alleen sportief nog bezig was, maar ook sociaal maatschappelijk. Ja, en sociaal gezien, je had gewoon de tijd en ruimte in je lichaam en in je geest om te kijken naar een ander. En ik denk dat dat echt iets is wat jou nog groter maakt dan dat je al bent. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale martida ah dhammaantood waxaan jecelahay inaan usoo gudbiyo salaan kaliya laab ah oo ka timid guud ahaan ummadda Soomaalida ee degan waddanka Holland. Salaan kadib waxaan jecelahay inaan si gaar ah oo xusid mudan uga mahadceliyo jaaliyadda Nijmegen gaar ahaan ururka Spain oo runtii hawshaan quruxda badan maanta soo abaabulay isku soo dibariday wax badanna u qabta ummadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Nijmegen. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad runtii u mahadceliyo hawshaas weyn ee qabtaan oo tan maanta ay Cabdi Nageye guusha uu gaaray kusoo bandhigeen ay ka mid tahay. aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadaalkaasna waxaan rajaynaynaa inaad meesha aad ka sii wadaan. intaa kadib
waxaan jecelahay in walaalkeen cabdi nagay runtii aan ugu mahad celiyo oo aan ku ammaano guusha weyn ee u soo hooyay boqortooyada waddanka Holland iyo guud ahaan dadka Soomaalida ah dadaalkii runtii muddada dheer uu ku soo jiray oo ku soo dhamaaday kulankii uga qaybgala waddanka Japan kana soo hooyay guul weyn oo dhammaanteen annagoo dhan aan ku wada faraxsanahay cabdi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay yacni waana runtii farxad weyn ayay noo tahay waxaadna tusaale u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada kale ee Holandeeska ah in haddii ay dadaalaan guusha guulamid ay gaari karaan muxuu ahay in uu magaalada Nijmegen uu ka tirsanaa dhalinyaradii ka soo baxday uu yahay taasna waxay samaynaysaa macno gaar ah waxaan jecelnahay kulanka soo socda oo jecelnahay inuu ka dhici doono ama tartanka soo socda Faransiiska soo sida maaha cabdi Paris waa loo dhowdahay inaan ka wada qayb geli doono insha Allah waan kula joogno marka aad iyo aad u mahadsantahay waxaa sharaf u arkaa runtii in Nijmegen ay macquul nooga dhigtay dhalinyarada Nijmegen in aan maanta kasoo qayb galno xafladan maasha Allah weliba maxamed amiin aad u mahadsantahay ururkaaga wax qabadka fiican uu sameeyay oo maasha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed uu muujiyay ilaahay ajri xasanaadka ka siiyo jazakallahu khairan. Hallo, ja. Ik geef nooit speeches, dus voor de eerste keer is dat sowieso een beetje spannend. Ik heb maar wat snel opgeschreven. In ieder geval zijn we hartstikke trots op jou. Je hebt een geweldige prestatie geleverd, dat staat buiten kijf. Maar daarnaast gaat het verder dan dat. Talent, daar word je mee geboren, dat zit in je DNA. Maar het vervolgens moet je er wel wat mee doen. Dan heb je dus doorzettingsvermogen voor nodig. En dat wat je laat zien op de baan, dat is een Olympisch gedachtegoed, wat we allemaal heel erg koesteren. عليكم walaalayaal kuma santiin inaan kan igu saacidinteen hal mid laakiin waxa fiicnaa dhalinyar badan ma jeedo ninka asaga suudkiisa soo xirtay hore ka soo cararay dhalinyar diyahan waxa uu sheegay marka ya waxa laga fiican yahay مثال fiican wax ku qaadan kartiin deete wiilkiisa ag fadhiyo waa ninka wiilkiisa u soo raaca markuu training sameeyo ku caawiya wuxuu jecel yahay asaga doortay inuu ordo kuma us qasbin laakiin wuxuu ku caawiyaa marka Soomaaliyeedna waxaan ilaa intiina kaliya khadbool iska jeediyaa bal inta ficilka inta ay bisna gaar bal ilaa ka dhigo in almiina ku caawisiin sportiga waa muhiim ay nooc ha noqdo aniga wuxuu jecel yahay bas aniga dad iskoolka soo laabto muxuu qabanayaa ay 4 kilomitir iskoolka yimid 5 kilomitir iskoolka yimid bas computer ku shidana marka YouTube wada yaqaanaan waalidkii dhinaca ka fiirsadaan xanta iyo politika iyo dad isheesta ilmiina dhinaca ka fiirsanayaan Nicki Minaj iyo balaayo dhan so meesha waxa jira waxna nothing waa khasaaro inta saacado inuu iskoolka markuu yimaado from 5 o'clock ilaa casha inta laga gaarayo badanaa waqti khasaaraha hadii la fiiriyo familiyada Soomaalida intaas kaliya wax ka qabtaan dhilaha intaas kaliya waxa ka qabto ilmaha meesha raatago dabaal baaskiil tennis orod naami khidad badan dhahayeen hana la caawiyo wax karna dawladda alla saka way jiraan video waxa la taayarkina marka la soo saarno lama baahno uu jira taayarka dukaanka tagay taayarka soo gadanaysa atletic baana jirta door fiican leh tababaro tayo joogo gacmo fiican kugu soo dhaweynaya ya isticmaal way jiraan wixii lama baahno inaad hadii guri lagu siiyay oo ceerta lagu qorado everything way jirtaa wax kasta sida hebel laba orod aad weyn oo qof kasta oo naamay khinaar yaqaano Soomaaliku markii iska qayb galaysa adoo ma faraxaysta cabdi bila cabdi dad badan soo arkay orday xataa dabaal la garay iyo tennis midaal ma haysid laakiin waxa haysta cabdi bila haysta ma faraxaysta wiilkaada da 7 hills waxa jira ordaha yarka loogu talagalay ilmaha yarka 1 kilomitir loogu talagalay 4 jir ku jira ku sayfevel waxa jira sayf kilomitir 7 kilomitir loogu talagalay yarta 15 ana horta waxaan ku bilaabay anoo jira 18 jir oo xilli la dhigi karo waa daahday ah laakiin kan waxa keenay dadaal aad u adag waan sidii ka dhalinyar badan kama soo bixi karaan dadaalka aan ku jiray wada dhalinyar badan markaan isla hadlaynay oo Itoobiya joogto isla tabar jirnay ninka soo xasuustay wala nii waagiisaas samay jirtay ya meel uu ka gaaris wala isku ogaay macna extra dadaalkaas keenay laakiin halkan struggle kaas aad u badan loo baahnaa because wixii dhamaa ku Korealand marka dhalinyartiina ku caawiyo sportiga ani markaan Apple Doon deganaa jiray 2010 2010
dhalinyaro badan oo cadaan ah isla orjirnay Soomaalidu is arkeenba dhalinyaro cadaan ka hodhan ayagoo sport adag ku jiro ciyaaraha Yurub ka qayb galinay yar ka under 20 under 20 under 30 ka qayb galayno ayaga dhanka ugu yar haabiyo dhiganay maxaa keenay orodkii ku barayaba discipline ku barayaba marka asagoo cunuga orodkii boqolkiiba orod ku jira Mareykan tababar u tagayno iyo Afrika tagayno adduunka ka qayb galayno ayaa ayaga dhan haabiyo nifo dhiganay way isku labadu waa ayagoo high niveau oo sponsor la yaama ahaan ayagoo wiilka dito kala maanta oo iska junior iska ah ayagoo professional wali haabiyo si dhiga kareen ani haabiyo inaan tagaan rabay waan iska qoray marka laba isbuuc ka harsadaan laakiin iska dhaafay taani waxay inaan dhahay niyahow rag dhagaha iga tun waa Kenyan Ethiopian raga saamato oo gaari canjarada la soo cuno waraaqahan ay dambeeyaan laakiin inaan tagaan waan iska qoray wuuna jiraa emailkii aan macallinkaas u qoran asoo raaniyo ana ku caawinayna waan ku heli karnaa inaad training ka Mareykan ku tagtid dhib ma lahayn waxaan ku fasax karnaa sanadkii 4 jeer ku fasax karnaa waxaan dhahay kuma sadda intaba laakiin ragaas ana dhig ku soo arkay ciyaar maahan 3 asbuuc aan la soo tababartay ma filno waa inaan dhowr sano la soo joogo hadda waxay ku qaadatay waxay 2010kii ahayd hadda meeqa ka soo wareegtay 11 sano miya daasa iskool ugu dambeysay 11 sano marka waa hadaf marka leedahay marka cunug laakiin marka oo horeysa dad wixii ku bilaad hadda deeta kama war hayo wiilkiisa wuxuu hadda oo qordas u marayo laakiin hal mar ogeey asaga dhadhamiyay asaga fahmay waxay tahay yar loo ordo qaranka loo ordo ordada magacyadu kala fahmay asaga markiis dabiraay laakiin cunug waa in marka u bilaadid baaskiil la soo qaadid gaari ku keentid tababar ku raac jarmalka u raaca oo geeya Soomaaliya markiis marka dhalinyarada tan saacadeena ahayd la ayaan inspiration sameeyay adiga caloosha inta la eegda maxaa ka faa'iideysi nothing caafimaad kale orda marka waa ku maasantihiin hope waxaan dhilahay isticmaala hadda wadanka imaado ila socda dhalinyarta soo aruuriya ani inspiration waxa ka qaaday marka orodka bilaabay cadaanka markaas orday laakiin markaan arkay Soomaali ordi kale oo kamid yahay wiil la Cabdi Cabdiraxmaan waa rekoorka Mareykanka haysta 5 Olympic ay damarayay asagna xasuustaan inaan arkay marka Soomaaliga markaad aragtid tan waa wax sax hadda waxa leeyahay anigu wiilkaas cadaanka waa ku farxsan inspiration ku sameeyay laakiin kan cadaanka oo indiis oo markuu arkay ayuu si aamin inuu kari karo laakiin markaan Soomaali arkay ayaana si aamin inaan kari karo Kenyaanka Ethiopianka oo asleena waxaan maxay soo cunaan la qaban karin aan aamin iska dhici karo ayagana oo markaas ka bacdan u tababarto marka waxaan dhilahay dhalinyarta saas marka ordada ka qayb galo kala la socda hadda waxaan maqlay in dhahay buug goor maqlay buug 2 sano socdo waa qof kasta oo taqaano marka dadka wareysiin Soomaaliyeedna kii waxa markuu heer gaaro isticmaala la hadla Amsterdam waxa jiray wiilal daily paper la dhaho oo modelka kale heer sare ka gaaray dad Umar Muuni oo Den Haag jooga marka arkaba laakiin Soomaaliyeed ma isticmaalaan cadaanka saddex galan cadaanka la shaqeysanayaan Soomaaliyeed lama soo doonanaysa laakiin wiilka Soomaaliyeed ugu farxi lahay markuu arko wiil oo asagoo qaxootiba soo galay oo maanta daily paper kamid daily paper inta slaag haysta Umar Muuni oo la fiir kala dhaho oo hatta halkan kuma dhalan hatta ayaguna annagoo kale waa generation-kayga waxa weey 92 marka waxaan dhilahay please dhalinyarta hadda adinku aad information ku karineen kuwa heer ka gaaray isticmaala markaas way soo wici kartiin in dhalinyarta la hadlo sidoo caloosha laga soo kala yareeyo oo kuma aysantiin الله يوتص